وانا سلامي صاحبيال مeel kasta oo dunida ka joogtaan waa saaxiibkeena Balawi muuqaalkan waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo login form iyo sign up anagoo isticmaalayno maadada PHP iyo MySQL sidoo kale waxaad baran doontaa sida loo soo degsado template-yada ama source code-yada PHP ku shaqeeyo MySQL loogana isticmaalayo computer-kaaga haddii aad tahay IT muuqaalkan waa kaagay ila socod login form ka rabo inaan sameeyo koodkiisa waa kana halkan user registration ka koodkiisa waa kana qofka marka uu isdiiwaan gelinayo qaabka isku diiwaan gelinayo koodkiisa waa intaan marka uu log out uu sameynayo halkan galaya login marka uu sameynayo marka uu soo diiwaan geliyo kadib login aan sameynaya koodkiisa asigana waa intaan marka uu rabo marka login uu kadib gudaha u galo meesha uu soo bixi lahayd home ka ayaa loo yaqaan waa kana koodkana rangareeyna marka fiiro wax soo baxay waxa tagaysaa browser-ka tagaysaa browser-da mid ka isticmaasho gal kadibna war local host /sign up waa kana hadeer waxa soo baxay koodkii ay soo baxay markii wixii aan soo sameeyay waa kana username iyo password ay halkan la gelinayaa ku waxa ka horeeyay laakiin ina qofkii soo diiwaan geliyo sign up ayaa la sameynayaa yeeri halkan waxa la gelinayaa username la gelinayaa username waxa aad ka dhigi kartaa tusaale ahaan Balawi ayaan ka dhigayaa fiiri halkan email laga rabaa email kasta waa geli kartaa kaliya waxa waa @gmail.com asiga fiirsanaya balawi@gmail.com password kana fiiri 223 ka dhigay haddii aan password ka aan fiiri waa kala dubaya hadda 223 geli 223 leeyahay sign up leeyahay kidin wuxuu leeyahay both password must be same way na hadaan laga rabaa marka waa kana ka diraya afar ka diraya kadibna sign up leeyahay wuxuu leeyahay fiiri you are successful registration waa ku guuleystay inaad diiwaan geliso login aad tagaya marka meesha login ka ku dhufanaya page kana ay soo baxay bas wixii aad soo sameeyay gelinaya aan sameeyay hadeer Balawi ayaa sameeyay waa kan hore ka soo qabanaya password ka gelinaya fiiri 223 waay afar ka dhigaya marka wuxuu leeyahay fiiri invalid username or password akasa marka la gelinaya Balawi geli 223 login da kadibna waa kana home page ka lagu keenay welcome to account Balawi kusoo dhaw akasa marka xogtan waxa lagu shuubay zambaha tigayna fiiri zambaha soo kacsanayna kadibna admin ku dhufinaya ma admin jooga database ka ay sameeysan waa sign up ayaan ku dhufanaya waa kana marka table members magaca waa kana userada aan isticmaalay ID waa kana ID 123 asiga automatic u siinay ibra Balawi hadda waxa sameeyay waa kana password encrypted waa qarsan yahay calaamadaha ku buuxinaya gmail ka aan sameeyay waa kana balawi@gmail.com taariikhda la sameeyay waa kasa hadeer waan tirina waa soo bilaabayna marka dhamaan waxa ku tusay marka koodkan adigoo aan qorqorin qaabkaad ku helahay midkaana tagay hadeer sign up tagaya fiiri sign up tagaya kadib waxa leeyahay operation is tagaya hoos u soconaya kadibna halkan fiiri drop database iska tiras database kan dhan okay dhahay waa kasa database kan dhan waa baxay hadeer halkan fiiri refresh leh kan kasilaaw halkan hoosna ka tirina marka fiiri aan tagayna kan fiiri sida tagayna zambaha ku dhufanaya kadibna HTTP docs ayaan ku dhufanaya sign up folder kaas ayaan tuuraya waa kana dalida leeyahay waa kana permanent head waa baxay halkan ka baxa halkan ku soo laabo waa kana koodkii oo dhan automatic waa baxay folder-kii ku laabo local host qor /sign up qor not found waa kana waxna hadda ugu jiraan koodka waxa soo dejinaysaa videogan hoostiisa description-ka ayaa soo dejinaysaa download-iska ayaan ku soo galayaa kadib waa kana folder-ka waxa ku qoran sign up ku qoran
right click leedahay kadibna waxa leedahay extract leedahay extract all dhamaan waxa ku sameeynaya marka extract ku sameeynaya waa kana folder kana ku keenay marka folder kana qaadanaya right click leeyahay kad ayaa leeyahay ama copy leedahay mid ka ridid isticmaal kada dhahay kadib waxaan tagayaa this pc ga tagayaa waxaan tagayaa marka local disk ayaan tagayaa Zamba ayaa ku dhufanaya htt docs ayaan ku dhufanaya halkaana dhigaya marka paste ayaan leeyahay magaca ka bedeli kartaa daaridna waa qaadan kartaa waa ka laabanaya marka kan soo kici waa kana waa soo laabanaya sida automatic waa soo galaya laakiin hadii automatic ku soo galaynin waxa sameeyaysaa file ku dhufinay open folder leedahay kadibna Zamba meeshii aad soo dhigaysay http docs soo dooranay kadibna waxa dooranaysaa sign up dooranaysaa select folder leedahay waa kana halkaan ay ku soo galaya sidam waa kana marka koodkii dhan waa diyaarsan yihiin adiga waxa ka mid bedelays kaliya waxaan tagaynaa marka inaan inaan ku xiraan rabnaa SQL ka Zamba soo kacsineynaa admin ayaan ku dhufanayaa kadibna new ayaan ku dhufanayaa database sameeynaya kaliya new ayaan ku dhufanayaa database ay halkaan qorayaa database ka magaca u baxso magaca xirta u baxsan kartaa tusaale ahaan hadda waxaan bixiyay sign up u bixiyay create ayaa leeyahay kadibna waa kan waa la abuuray waxa kale ma sameynaysid table automatic hadii table asmaysid xaggana table ayaa laga rabaa inaad ka soo sameyso tablada soo saxid marka table kan code kan ka sameysana rabaa inaan qaato waxa leeyahay marka import aan ku dhufanaya aniga wax kale sameeyay fiiri sign up jooga wax kale ma sameynin import aan ku dhufanaya halkan qorta juice file halkan ka soo dooro juice file SQL halkan laga rabaa inaad soo geyso sida aad tagaysaa Zamba ayaa ku dhufanaysaa oo soo folderkii waxa raadaysaa http docs waa kana kadibna folderkii aan soo gelinayna oo sign up ayaan ku dhufanayaa waxa raadinaysaa marka SQL waa kana sign up folder kan ay soo qaadanaysaa kadibna open ay leedahay hoos u soco go halkaas ku dhufo soo jeedaba hadda waxa dhahay successfully waa igu jiraa had fiiri members tagaya waa kana ID username password email iyo xiliga la abuuray ayaa la soo gelin doonaa folderkan wax xog ah kuma jirto waa ka laabanaya marka kana ka laabo ama iska xir hadii oo ku dantiya hadii kaleba waxa tagaysa marka koramka tagaya waxa qoraysa marka local host slash leedahay local host marka qorto halkan laba dhibic leedahay kadibna waxa qoraysa lambarkaaga ayaad gelinaysaa lambarkaaga inta ka fiirinaysa Zamba marka aad soo gasho waa taqaanaa Zamba fiiri lambarkan ayaa laga rabaa lambarkan hore ayaa laga rabaa inaad geliso lambarkaas aad gelinaysaa local host laba dhibic 8 qoraysa kadibna folderka magaca soo baxay sida gelinaysaa slash leedahay kadibna waxa raacsinaysaa index.php raacsinaysaa kadibna enter leedahay kan iga jar hadeer folderka ligi local host kana waxa soo qabsaday baalkii soo qabsaday sign up waa kana waxa raba marka kalarada waxaan inaan bedelo koodka ayaan ka bedelayaa koodka aad tagaysaa marka bedelaysid waa kana koodkan hadeer kan registration ka waay maarasha oo wax lagu diiwaan gelinayo waay registration ka fiir meeshiisa hadeer waa kan registration ka tusaale ahaan halka marka rabo inaan bedelo ama background ka marka rabo inaan bedelo waa bedeli karaa qoraalkan waa bedeli karaa waxaan tagayaa meeshii aad tagayaa registration ka tagayaa tusaale ahaan fiiri sign up button kan ayaa rabaa colorkiisa inaan bedelo backgroundkiisa waa kana background kan waxaad soo qaadanayaa fiiri Photoshop tagayaa color soo qaadanaya oo aniga aan rabo create new leeyahay color rabo inaan soo qaato mid la iska tag halkaan aan joogo hadeer shayba soo qabsanaya halkaan ku sawir akana colorkan ku dhufo mo color dheh colorada marka website-da loo isticmaalayo halkaan jag la saaray fiiri halkaan jag marka saarto color ka ritida qaad kartaa khafiifa naqana gaduud cadaan buluug akana kala karitida halkaan qaad kartaa salahan halkaan tagaya kadibna kana ka dhigaya okay raagay wujida colorka waa kasa colorka marka la cali colorka waa kasa halkaas jooga halkaan ku beenaysa marka
laakiin hodhow afar geeskaas ayaa ku daraysaa copy leeyahay meesha tagaya marka koodkii waa kana halkaana tagaya intaan iska tirtiraya kadibna control V ayaa leeyahay control S leh marka waa save garaysay meeshaan tag refresh leh fiiri waa isbedelay background-ka asigana bedeli kartaa background-ka hadda waa kana laba color ayuu wataa background-ka waxaa wataa fiiri laba color waa fiiri gaduud iyo waxaa isku jira meeshaan oo blue ah meeshaan gaduud ah meesha hadda bedeli kartaa marka tusaale ahaan dhankana bedelaya halkaana ku dhufanaya kadibna kana ayaa iska tirtiraya fiiri control V ayaa leeyahay control S leh refresh leeyahay waa kana fiiri halkan soo daray dhamaantood marka saas aad isticmaali kartaa waxa radid waa ka bedeli kartaa qoraalka size-ka waxa radid waa bedeli kartaa kan waxa waa registration ka waay kana log out marka sameynaysid waay qof ha diiwaan gelinayna waa kana qoray email kana geliyay password kana gelinayna 223 iskaga dheh confirm password ku celi 223 kadibna sign up dheh saa ujeedo hadda you have successfully registration login leenahay kadibna waa kana login ki ayaad gelinaysaa wixii aad soo diiwaan gelinaysaa ayaad u qoraysaa waa kana login leeyahay waa kana marka welcome to account home kana waa kana marka fiiri hadda xogta inta ka fiirinaya zamba ayaa tagaya kadibna admin ku dhufanaya qofkii hadda aan diiwaan gelinaynay waana uu ku jira raba xaggaas kadibna folderka aan sameynayna raadinayna sign up ku dhufanaya kadibna waa kana members waa kana marka ID waana la sii ibra oo ay passwordkiisa waa kana encrypted waa laga dhigay kadibna waa kana google mail@gmail.com taariikhda la abuurina waa kaasa qof walba soo diiwaan geliso halkan ayaa soo galaya marka log out leeyahay waa kaasa waa ka baxaya marka la soo gelinaysa kula xogta laakiin log out xagga ma ka baxa kaliya folderkaas ayaa soo dhabaysa waxaan filayaa in muuqaalkan aad wax badan aad ka faa'iiday fadlan la wadaaga asxaabtaada haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran channelka Balawi fadlan nagu soo biir mahadsanid